السلام عليكم kusoo dhawaada saaxiibayaal warbixin la yaab leh oo ku saabsan dadka cuna hilibka jirka jariday aligariye sobraya kaywan kaan hangara namalari yali vaada pudi bara nike yali veta vayal veliyata nikra semya saapdu bara rusi se saapdu kahor intaadan seexan waxaad caadi ahaan hubisaa in aadan cunto ama weelal wasakh ah uga tagin miiska si aysan u soo jiidan marti aan loo baahnayn sida jirka. dadka qaar aragtidiisa kaliya ayay ku laqanyoodaan. magaalada New York ee dalka Mareykanka tusaale ahaan waxay dhowaan dadaallo cusub ku bixisay dhibaatada dooliga ee ka jirta magaalada, balse jirka lagama nacba dunida oo dhan. xaqiiqdii meelaha qaar ee adduunka jirka waxaa loo arkaa cunto macaan oo la jecel yahay. sanad walba 7 bisha Maarso qabiilka la yiraahdo Addi ee ku nool xaafadda miyiga ah ee ku taal buuraha waqooyi bari ee dalka Hindiya ayaa waxaa looga dabaaldegaa munaasabad lagu magacaabo Yunin Aran. waa munaasabad aan caadi ahayn oo hilibka jirka lagu soo daro cuntada halkaas lagu cunayo. mid ka mid ah cuntada loogu jecel yahay xafladda Addi waa maraq lagu magacaabo boole bolog kaasoo ka samaysan caloosha, mindhicirka, beerka, saynta iyo lugaha jirka oo la kariyey kadibna lagu daray cusbo, basbaas iyo sanjabiil. dhammaanba noocyada jirka ayaa laga cunaa halkan haddii aan lahayn kuwa guryaha lagu arko iyo kuwa duurjoogta ah. saynta jirka iyo cagaha ayaa gaar ahaan aad u ammaaneen marka loo eego dhadhanka, sida uu qabo Victor Benomayer oo ka tirsan jaamacadda Oulu ee dalka Finland. wuxuu la hadlay dad badan oo ka tirsan qabiilka Addi mar uu dhowaan sameynayay baaritaankiisana wuxuu ku saleeyay in jirka loo isticmaalo cunno ahaan. intii uu waday baaritaanka ayaa wuxuu la kulmay dad kala duwan. waxay dadku u sheegeen in hilibka jirka uu yahay kan ugu dhadhanka fiican ay og yihiin. Victor ayaa yiri, waxaa la ii sheegay inaysan xaflad iyo farxad jirin haddii uusan jirin hilibka jirka. haddii la maamuusayo marti qaali ah ama qof qaraabada ah, munaasabad walba oo gaar ah waxay dhacdaa kaliya marka uu miiska saaran yahay hilibka jirka. kaliya cunto ahaan uma cunaan, balse waxay sheegaan in sidoo kale ay hadiyad ahaan isu siiyaan hilibka jirka. sidoo kale waa qayb muhiim oo ka mid ah sooryada. marka ay qaraabada caruusadda ay u soo diraan guriga ninkeeda, hadiyadaha ay soo raaciyaan waxaa ka mid ah hilibka jirka. markii dadkaasi la weydiiyey dhadhanka hilibka, waxay ku jawaabeen, waa hilibkii ugu macaanaa ee aan cunno nolosheenna. waa mid aad u jilicsan, aadna u macaan. maraqiisuna aad ayuu u macaanaa, ayuu yiri Gates oo ku nool gobolka waqooyiga Hindiya ee Bihar. Gates wuxuu waqti kula qaatay qowmiyadda Dalit ayaa iyaguna cuna hilibka jirka. dadka muslimiinta ah ma cunaan hilibka jirka, balse waxaa jira dadyo fara badan oo ku nool caalamka kuwaasoo cuna hilibka dooliga ama jirka. Garanti Singleton oo ka tirsan Machadka International Rice Research Institute ee dalka Philippines ayaa sheegay in jirka si maalinlaha looga cuno dalal fara badan sida wadamada Cambodia, Laos, Myanmar, qaybo ka mid ah Philippines iyo Indonesia, Thailand, wadanka Ghana, Shiinaha iyo Vietnam. Bora.
பாருங்க இப்போதான் வந்து நமக்கு முதல் எலி ஒன்று கிடைச்சிருக்கு. சரி இதே எலிகறியே எலி வேட்டை பிடிக்க போறோம். இன்னைக்கு எலி வேட்டை வயல் வெளியேட்ட இன்னைக்கு செம்மையா சாப்பிட போறோம். ருசி சாப்பிடுவோம்.